Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta qaaliga ah kusoo dhawaada youtube-kayga Shukri labo ku toos mar kale iyo video cusub ayaan ku kulmaynaa. Channelkayga haddaa ku cusub tahay video yaa kii kugu horeeyay waxaa kaa codsanaa channelka inaad subscribe ii saarto video ii like garaysid share garayso oo asxaabtaada aad la wadaagtid waana ku mahadsan tahay daawashada videoyaasheeda. Maanta sheekada idin wado ama qisadeena intaana u guda gelin sida caadada noo ahaydba igula sali rasuulka sallallahu calayhi wasallam allahumma salli wa sallim calaa nabiyina maxamed. Intaas kadibna maanta sheekada idin wado waa sheeko wajiye fara badan leh. Haddaba fiidiyaha ilaa ay dhammaad ka daawo saa u fahantid qisadeena maanta. Sheekadana maanta idin wado waxay ka dhacday wadanka Maghrib ayay ka dhacday. Halkaas waxaa ku noolaa family hooyo iyo aabbo iyo laba gabdhood ay dhaleen. Labada gabdhood waxay ahaayeen mataano waxaana la kala dhihi jiray Layla iyo Khatima. Khatima iyo Layla mataano ay ahaayeen. Weliba waxay ahaayeen mataano si zaa'id iskugu eg. Midaan haddaa aragto midda kaletana waa aragtay. Tinta, wajiga, dhirirka, tacliinta xitaa isku level ay ka ahaayeen. Si aada ayay iskugu ekaayeen. Waxaa u moodeysay hal qof oo la kala gooyay. Iyo zaa'id ay iskugu ekaayeen. Maalin maalmaha ka mid ah Layla oo guriga banaankiisa meel ereyadiisa ay joogtaa baa waxaa arkay wiil dhaho Yaasiin. Yaasiin gabadha aragtidii ugu horreysay aragtayba way xijibisay wuuna ka helay. Wuu imaaday wuu la hadlay su'aalo weydiiyay wuxuu ugu dhahay aniga waxaan ahay qof wanaag u socdo un. Waxay tiri hadday saas tahay aad wanaag u socotid gurigaas ayaa deganahay aabeena meels ayuu joogaa ee guriga albaabka ka soo gal. Yaasiin waa uu soo orday maba daahinba isla maalintii labaad wuxuu soo watay hooyadiis iyo faamiligiisu soo watay wuu u imaaday wuxuuna u sheegay aabaheed wuu imaaday wuxuuna u sheegay inuu rabo gabadhiisa. Odagu waa uu soo dhaweeyay markuu soo dhaweeyay wuxuu dhahay soo dhawaada dib ma lahan gabdhaha waa lagu siinaa laakiin midee rabtaa. Marka wuxuu ku dhahay ma kala aqaani mana aqaani uu dhahay laakiin maybe inay gabadha weyn tahay u maleena gabadhaasaan isbaran. Odagu wuxuu dhahay laba gabdhood bisaan qabaa laakiin way soo galayaan waa u wacay markay soo galeen qolkii ay ku jireen imaadeen wuu yaabay Yaasiin wuxuu dhahay bismillah because labada gabdhood maba la kala garanayninba miduu soo arkay iyo midda kale way isku egyihiin ma la kala yaqaano. Kadibna wuxuu dhahay aabbe gabdhihii weydiiyay yaa waa midda labadiina wiilkan is arkeen. Gabadha waxay dhahday Faaduma dhool cadeysay wixii ku dhahday marka aabba aniga waaye. Waa la hadlay saasuuna igu dhahay anna waxaan ku dhahay waa kaasa gurigeena imaad ayuu dhahay. Odagu wuxuu dhahay insha Allah khayr dhib ma lahan. Wiilkan dabcan markuu u sheegay uu dhahay faamiligiisa iyo wuxuu yahay uu sheegay odaga wuu gartay oo cid macruuf ah ayuu wiilkan ka soo jeedo. Odaga wuxuu dhahay okay waayahay insha Allah khayr waaye. One week isii oo xogtaadan soo raadinaa kadaa qof wanaagsan ku soo baxdid gabadheeda waa ku siinaa u dhahay. Waayuu dhahay odaga wuu baxay xogtiisu soo weydiiyay micnaha carabta dhaqankooda saas waay gabar markuu wiil ka soo doonto wiilka wuxuu yahay shaqadiisa sharaftiisa wax walbay soo baaraan markay ogaadeen qofka inuu qof wanaagsan yahay kadib bay gabadha siiyaan. Sidii dhacday wuu soo raadiyay markuu soo ogaaday inuu qof wanaagsan yahay faamilkan ay yihiin faamil wanaagsan wuxuu ku dhahay wiilkii wacay wuxuu dhahay imo almuhiim wuu imaaday wiilkii doonashadii yaa dhacday gabadha xafladii arooska wixii dhan mar loo wada dhigay wuu guursaday Yaasiin guri ayuu degay guri waliba aan aad uga fogeyn xaafadda ayuu degay. Halkaas markuu degay Ilaahay meeshooda uu ku asturay muddo yar kadib waxaa dhacday wiilka maasha Allah inuu gabadha aad uga helay wanaageeda akhlaaqdeeda gurigeeda nadaafadiisa wax walba soo uga shaqeynayso banaankiisa aad ugu farxay macnaha bacdal guur noloshii ahayd aad ugu qancay. Isagoo sidaas kaga qanacsan noloshoodana ay meeshooda u socoto maalmaha ka mid ah waxay is arkeen yar ay walaalo yihiin macnaha ilmo adeer ay yihiin saaxiibna ahaayeen meel ku wada koran oo dhaw Axmed ayaa u imaaday wasan dhalinyaro ahaa isku dacamal ay yihiin Yaasiin. Axmed wuxuu dhahay xog iga sii bal waa guursatay niyo aadna u faraxsantahay waa u jeeday bal guurka iyo xogtiisa sii. Waa uga sheekay wuxuu dhahay wallahi aniga gabar waxaan helay u dhahay aniga saan rabay qof aan helay nadaafada gurigeeda ilmaha wax kasta qof aad wanaagsan helay u dhahay Yaasiin. Okay u dhahay maasha Allah tabarakallah niyo anigana wuxuu dhahay hadaad saas tahay oo wanaagas aad sheegayso ma anigana migula talin lahayd u dhahay inaan guursado haay u dhahay wallahi guurso ilaahay qof wanaagsan ha ku siiyo u dhahay. Markaasuu dhahay maadaama aad dhawaysid gabadhan wanantaas oo wanaag ka sheeganaysid qab ka waran hadda ilma adeeradeeda ama walaasheeda ama gabar oo iyada dhankeeda hadda ii raadisid. Markaasuu dhahay Allah wallahi wuxuu dhahay waxaaba jirto u dhahay iyada mataanteeda oo gabadhan aniga aan qabo iyada leeba ah iyadoo la kala jaray baa guriga joogto u dhahay mataanteeda waa u dhahay tacliinta midabka wax kasta way iska leeyihiin.
walaa wuxuu dhahay igu raadahay waa igu dhahay anaa kaa wargeyna adeeraa u tagaa waa usoo sheega kadibna waa u tegi doontaa okay adeerkii u tagay xogtii markuu u sheegay wuxuu dhahay insha allah hadduu qof wanaagsan yahay ii imaado wiilkii maalintii labaad baa hooyadiisii iyo faamilgiisu asna watay uu u tagay odaga markuu soo baaro waa la isku waafaqay gabadha waa la siiyey gabadha markii la siiyey yaasiin ilaahay amarkiis guriga ay degan yihiin guriga ku degan baa banaanaaday wuu wacay wuxuu dhahay anigo maadaama aroos aad tahay guriga aan deganahay falaydka deganahay falaydka ku degan baa banaan ee ma kuu qabtaa hadda laga bixi ma degaysaa ii qabuu dhaa waa degaa falaydkii ku deganaa laysoo degeen gabadha waa lasoo guursaday labadii gabdhood waa walaalo labadii wiil waa walaalo meel isku dhow ay ka wada shaqeeyaan shaqadii wada aadaan nacam noloshu waxay noqotay mid maasha allah sidii la rabay mid ah ayuu noqotay noloshu wiilashan way israacaan gabdhihii way isku dhow yihiin way isku heshanayaan hadday meel kuwan aadaan isla soo daahaan xitaa dhib ma jiro oo maxaa la dhahay gabdhihii walaalaha way isla degan yihiin ayadoo ay noloshoodu ay halkaas u marayso baa waxaa dhintay aabahii dhalay labada gabdhood oo mataanaha ah markuu dhintay tacsidii iyo wixii markay dhammaadeen hooyadood keligeed ayay guriga ku noqotay marka waxay dhahday go-aanay qaadatay waxay u imaaday gabdhaheeda waxay ku dhahday aniga guriga waa soo gadaya markaa guriga soo gadana idinkaa idinla soo degaya dhahday oo hal bilna gabadhaana la joogaa hal bilna gabadhaana la joogaa idinkaa idinla noolaanaya dhahday gurigaas oo cidlada keligii maku noolaan kare way ku farxeen waxay dhaheen welcome soo dhawaa dhaheen wiilashana waxay dhaheen soo dhawow hooyo wixii because hooyada waxay hooyo aad u fiican oo arrimahooda aan dhex gelin dhexdooda faamiliyada dhexdooda aan gelin qof wanaagsan ay ahayd waxaase kasii fiicneed inayba dareemeen murtaaxo markay maqan yihiin gabdhihii isku dhow yihiin hooyada ay la joogto ammaan ahaan xitaa waxay dareemeen de waxaad u fiican hadday soo daahaan ama hadday maqnaadaan hadday shaqada waxun inaysa guriga walwal uusa ka haysan oo hadday baxaan hadda way walwali lahaayeen maahan qof keligeed markuu meel degan yahay iyo markuu faamilkiisa dhex jooga isku mid maahan marka walwalkaas wiilashu waa ka yaraaday axmed waxaa u joogtay wiil iyo gabaraa u joogeen halka maxaa la dhahaa yaasiinna laba cunugoo mataana ay u joogeen laba gabdhoodoo mataanaha u joogeen ayadoo noloshooda halkaas idkuugu marayso halkan ayay ka bilaabatay musiibadii koowaad ee faamiligan waxaa dhan inay caadi iska yihiin lasoo guursadee saas waa ma malaynaynin masiibadaba halkaanay ka bilaabatay maalin maalmaha ka mid ah khaatima gabadha la dhaho oo jikada ku jirta baa waxay maqashay qufac qof qufacayo quxuq way dhageysatay yaa xilsaa u qufucooy isdhahday way soo baxday banaanka imaada banaanka markay imaaday gabadheeda way hurdaysay waxay aragtay wiilkeedu hadda la ciyaaraya ay kasoo tagtay oo dhulka yaalay aragtay markay aragtay cunugeeda oo dhulka yaalo way yaabtay kore u qaada haddii kor u qaaday cunuga wejigiisa cagaar u noqday wuxuu ku ciyaaraya kuul yar kuushii uu ku ciyaaraya baa dhuunta uga tagtay naqaskaa ku dhagay way qaylisay way oysay albaabkii ay furtay way carartay waxay u tagtay guriga walaasheedii ay tagtay hooyadiiyaa soo baxeen cunugii inay caawiyaan isku dayeen already cunuga yarkaa wuu dhintay sakiirka wuu dhintay cunugii inay caawiyaan way rabeen cunugii laakiin ka gaari waayeen wuu dhintay mararka qaar wallaahi ilmaha yararka waxyaabaha ay ku ciyaarayaan in aad looga digtoonaadaa fiican sababtay tahay kuulaha iyo biraha iyo waxay iskala qaayaan wixii meeshaasi u istaagayaan cunugii si yaroo kadisa basiido 5 daqiiqo ku dhiman karaa marka in la iska ilaaliyo way fiican tahay gabadhii markay saa cunugeeda uga dhintay way aabihii ay maaday aabihii waa la isla ooyay cunug yarka waa la iska soo aasay halkaas khaatima halkaas waxaa ka bilowday walwalkeeda ma seexato ooyin walwal kurbo say ugu jirtay almuhiim muddo kadib way iska ilowday 1 sano iyo bar markay kasoo wareegatay arrintii dhimashada wiilkeeda maalin maalmaha ka mid ah yaasiin iyo axmed oo isla socda baa waxay soo koreen guriga markay imaadeen qof kasta intuusan falaydkiisa aadin meeshii dhexe intay joogaan waxaa u soo uray gaas waxay arkeen gurigii dhan gaas soo uray axmed wuu soo orday gurigiisuu furay gaaskii markuu wuu uriyey gaaska ma soo uriyey markaasuu yaasiin gurigayga maaha aadi gurigaaga waayo ku dhaxay yaasiin isna albaabkii furay markuu furay maashaba guriga gaasa wuxuu ugu furan yahay si maxaa kaa galay gaas zaa'idaha ku furan wuxuu gaaskii yaasiina guriga galay axmedna waa ka daba galay saastay u galeen nalkay daareen nalka ay daarayeen maahane infijaar kabiiraha dhacay qarax weyn baa hal mar buuwa dhahay wiilashiiba banaanka hore guriga kusoo dhaceen labadoodiiba guriga dhan way kasoo haadeen khaatima ayada qolkeedii ku jirtaa gabadha yartaa unbay iska haysataa hooyadeed iyo walaasheed iyo labadii cunugeed dhaleena gurigan qarxay way ku jiraan
way yaabtay qaraxii markay maqashay bannaankay imaaday gurigii wixii aragtay holcaayo hooyadeed iyo walaasheed iyo labadeedii cunug gudahay ku jiraan way qaylisay askartaa loo wacay dabkii waa la damiyey faamiliga haddii loo tagay way wada dhinteen hooyadii gabadhii Faadumo ahayd iyo labadeedii cunug oo mataanaha ahaaba halkaas ayay ku dhinteen wiilkii Yaasiin iyo Axmed labadoodana maadaama dee xawligii qaraxa uu bannaanka kusoo tuuray labadoodii dhakhtaraa la geeyey dhakhtarkii markii la geeyey Yaasiin isaga waxtaas ma gaarin caadi iska noqday laakiin Axmed juga madaxa ka gaartay dhiiga ku furmaa la dhahay waa la seexiyey meesha camaliyada la seexiyey tacsiidii iska dhamaatay dadkii waa la iska aas-aasay Khaatima marka cunugeedii iyo awalan ka dhintay ayadoo markaas la kasoo kabsatay hooyadeed iyo walaalaheed iyo labadeedii cunug hal mar dhinteen kaagsi daranta ninkeedii isbitaalka ayuu ku jiraa ayadoo arrintaas ninkeeda iskaga tagto maalin kastoo halkaas ninkeeda ay iskala joogto muddo yar kadib 4 beri un kadib Axmed wuu dhintay asna Axmed markuu dhintay Khaatima ayadana meeshaas iska walwashay muddo kadib guriga way ka guurtay xataa muddo kadib iyada iyo gabadheedii bisa faamiligeeda ka soo hareen aabii hore u dhintay hooyadii walaasheed way sayadi muddo iskaga walwalsaneed gurigeedii iskaga soo laabatay way iska degtay iyo marka Yaasiin oo Leyla walaasheed qabay asna uu ka warhayn jiray uu ku soo booqan jiray waxay u baahan yihiin uu keeni jiray meeshaas uga warqabi jiray muddo yar kadib marka wuxuu arkay maadaama walaaleed ay dhimatay wuxuu dhahay wuxuu u soo bandhigtay guurka war haddaa isguursano oo mee iska weheshano maadaama iyaduna way ogayd ninka nin wanaagsan inuu yahay oo walaasheedu qabay marka wuxuu dhahay inay idin wehel yeelo adii gabadhiina rabaa aan isguursano iyaduna way ogolaatay waxay tiri okay way isguursadeen markay isguursadeen waxay u dhashay 2 wiil iyo 3 gabdhood adii saas tahay imse waa 3 wiil iyo 2 gabdhood ma kala aqaan adii un ilmo 5 ay u dhashay oo 2 wiil iyo 3 gabdhood inay yihiin u maleynaa saasina ahayd u maleynaa qisada tiraada isku qaldoya waxa wiilasha 3 ma aan mise gabdhaha 3 ah adinta kala garan lahayn bay intaas u dhashay gabadheedii horena way haysataa gabadheedii hore waxay u bixisay khuluud way weynaatay naag weynay noqotay laakiin waxay noqotay gabar oo micnaha dhibley ah noqotay hooyad warka maqlayso aabaheed wuu dhintay adeerkan oo sideeda asna inkastoo afaareeda gelin laakiin war asagana kama maqlayso baradkeeda iska gashaa markay rabtay maadaama markay rabtay baxdaa way iska baashaalaysa adin muddo say iskaga caradeeda iskaga socotay wiilkay isbarteen jaamaca iskaga bixinayna jaamac wiil dhahay isbarteen wiilka jaamaca markay isbarteen oo isla socdeen wuxuu u sheegay been ku dhawaa isguursanayna xiriir uu la sameeyay aada dhalinyaranimo iska wada qaaday marka muddo ay wada socdeen wuxuu dhahay jaamacadu markaas dhimanay wuxuu dhahay markaa shaqeysto oo aan shaqo helo shaqadeyda wixii isku kayto toosan baa ku guursanaa waa ay run oo maleysay waqti dheer kadib wiilku wuu shaqeystay meel iska soo saaray markuu meel iska soo saaray wuxuu dhahay guur ma u soo socdaba ninkan xiriirkan dhuuqdan biso iska raba way u imaadaa markasta waxay ku dhadaa goorma ay guursanaysaa hooyaday way ogtahay xiriirka adiga ma ay soo guursatid qararacsay u dhaysan maalinta dambe wuxuu ku dhahay walaal aniga guur uma soo jeedo dhahay ya edaade uma soo jeedo dhahay aniga guur hadda ma rabo inaan ku guursado xiriirkan ha iska keeno socdo dee markii aan ku fikiro inaan ku guursado markaas ku guursana waxay ku dhadaa hadaada ku guursanaynin maxaa beenta iigu sheegtay mayu dhawaan rabo inaan ku guursado laakiin hadda waxaan ku fikirayaa inaan isguursanin saan la iska socono camal gabadhi way xanaaqday way kasoo tagtay xiriirkii way jartay xiriirkiisa jartay way kasoo tagtay gurigeeda imaado iska ooyin jirtay oo iska walwalsanaan jirtay maalmaha kamida waxa u soo gashay hooyada iyadoo ooynaysa waxay tiri maxaa kugu dhacay hooyo waxay tiri jaamac wuu khiyaamay saanu igu sameeyay wuu ku guursanay igu dhaamana igu guursanay haddana wuxuu igu dhahay ma ku guursanaa dib malahan dhahda iska dhaaf waxay dhahdaa maya ani inaan ka argoostaa rabaa oo xanuunkan dareemayo in asagana dareensiiyaan rabaa hooyada waxay dhahday saas miya ahaa waxay dhahday okay anaa ku saacidaayo wawac guriga keen guriga markaa guriga ii keentid baaba asaga dhanba waaba u dhammaynaynaa ay dhahay wallaahi gabadha hooyada ka filan weyse hay waaye dhahday maalin ilmaha iyo aabooda ay baxeen oo ay banaanka jireen bay taleefon qaadatay way wacday waxay dhahday jaamac miya ahaa kaala imo jaamaco arrin yar rabaa inaan kaala sheekaysto gurigana kaligaa jooga ii imaada dhah hayuu dhah asaga waa ahlu shaydaan asaga walba iska ahaa wuxuu dhahay khalaas gurigeeda kugu wacato u tag dee isaga meel kale ku fikirayaaba wax kale ku fikira asaga shaqo jaanimo oo ku fikiraya maahane waxa qabsan doona asaga maba oga maahano oo soo orday guriga ugu imaaday guriga markuu imaaday maashaba gabadhan hooyadeeda joogto wuu yaabo wuxuu dhahay kaliya joog maxay dhis hooyada joog may dhiman hooyada bixeeda
hooyadii yaa imaadaa la jaamac see tahay maxaa gabadhayda khuluuda maxaa waxay dhahdeen uga xanaajisay wuxuu dhahaa maya hooyo dhahay ma rabin uu dhahay eedo inaan ka xanaajiyo waxay dhahaysaa guuraa rabaa hadda isoo doonay dhahaysaa anigana waxaan dareemayaa inaan hadda guur diyaar u ahayn waxaan dhahay wax yar la dib noogu dhigaan dhahay laakiin insha Allah khaar isku noqonay dhib ma lahan ay dhahday way baxday maamada juice u keentay galaas juice markay u keentay waxay juice-kii uu cabay wiilkii juice-kii markuu cabay waxay ugu soo dartay maada hurdisiinaysa ugu soo dartay juice-kii uu cabay wiilkii meesha ku dhacdo meesha markuu ku dhaco way qabteena waa la leejiyay ilaa nafta ay ka baxdo neef nafta laga siiyay uu dhintay markuu dhintana waa la qaaday baabuurkiisa lagu qaadaa la geliyay xidhanaysa u qaadeen qofka markuu dhinta hadana aad u culus ee laba dumar ay ahaayeen adigu way qaadeen gaarigii ay geliyeen wayna qaadeen way baxeen magaaladii deganaayeen ka baxeen meel tuulo ah webi ku yaalo bay tageen webigii waxay ku soo rideen gaarigii iyo ninkiiba webigay ku soo tuureen waana ka soo dhaqaajiyeen kaanama inaysan waxba dhicinba gurigooda imaadeen muddaa la joogay cunug wiilkii waa la waayay markuu soo noqon waayay reerkiisii raadiyeen waa in askartii u tageen way balaaqi geeyeen in wiilkooda uu maqan yahay askartii way baareen waxay dhaheen yaa ku tuhmaysiin cadow muu lahaa qaar su'aalaha noocaas kala weydiiya askartii waxay dhaheen waxaa jirta gabar khuluud la dhaho oo markasta guriga ugu imaan jirtay way isdagaali jireen oo guurso dhihi jirtay gabadhaas unbaa ognaa waxay isdagaashanaayeen laakiin wax kale ma ogin askartii way soo orday khuluudaa la soo qabtay hay khuluudaa la ninkaa meel ku sheegay fast way inkirtay markii dambe waxay tiri waa dilnay dhaa askartii waxay dhaheen yaa dishiina allah waxay dhahday waa dilnay dhahday jaamac ani hooyadaa isla dilnay waana qaadnay dhahday webigaa ku soo ridnay waa la soo xiray hooyadii iyo gabadheedaa la soo xiray xabsigaa la dhigay xabsiga markii la dhigay meeshii aldhaana tusay ku rideen meeshay ku rideen geeyeen meel beenahay geysay marka waa la raadiyey diyaaradaa la kacsaday baabuuraa la keenay qalab kastaa laysku keenay waa laga waayay meesha wax baabuura kuma jiraan meesha markii waxba laga waayay askartii way soo noqdeen maxaa la intaagaysa aslan waxay dhaheen waa fikradooda way bedeleenba aslan waxay dhaheen annaga markii hore waana la dilay waana la cadaadiyey saasa u sheegana maahane annaga waxaa dilnamaba jirtaba waana la dulminayaa saas miyaa idinka leeba qirateen annaga waxay dhaheen cadaadiskaa u qirana weligaana saldhig iyo waxaas maana arkin soo sabtasaa u qiranay dhaheen saas miyahaa waxa la sheegay male cadeen ciidana kuma hayso gaarigii waa la soo waayay almuhiim waa la iska sii daayay markii la iska sii daayay gurigooda iska tageen gabadhii maxaa la dhahaa oo ahayd khuluud shaqa iska raadsatay shaqada intay ka shaqaynaysay waxay isbarteen wiil wariyaha isbarteen wiilkii markay isbarteen xiriir ay samaysteen way isjeclaadeen muddo markii ay wada socdeen meeshay ka shaqaynaysa marka meel saxaafad ku lug lahayd adii meelaha wararka iyo waxyaabahaas laga qoro wariye camal ay ahayd wiilkaana isbarteen wiilka markay isbarteen oo ay muddo xiriir lahaayeen bil iyo 2 bilood wiilkii adi ma aragtay waaba la waayayba shaqadii xitaa ma soo aado guriga kama soo baxo waa la waayay way raadisay intuu aaday alla si meelaha ugu dhaysay malahan wiilka marka maalin baa waxaa jirtay inay meel isku raaceen casho ah meesha marka isku raaceen way cabtay macnaha khamri iyo wax noocaas maandooriye cabtay markay cabtay waxay dhahday wallahi dhahdo haddaa isku dayday dhahday ina aniga ikhyaantid ama iga dhudhuumatid waxaa ogaataayay dhahday aniga inaan kuu galaayo tiri sidii aan jaamac u galay wuu qoslay wiilku wuxuu dhahay jaamac see u gashay waxay dhahday jaamac ani hooyaday isla dilnay waana qaadnay waxaana ku soo ridnay tiri webiga askartana beenaa u sheegnay runa wayna rumaysteenay si qaldanaa u sheegnay wax qaldanaa u sheegnay soo wayse keenna aaminin adigana saasaan kuu galaya dhahda haddaad isku dayday dhahday ina aniga khiyaantid wiilkii markuu harakaas maqlooba naxayba suu adi u qaqalsanaayo shaqadii xitaa imaanin oo gurigiisa iskaga jira maalinta dambe go-aan u qaatay wuu baxay saldhiguu tegay wuu soo dacweeyey askartii way baxeen waxaa loo tegay khuluud iyo khaatima oo ahayd hooyadeed gurigaa loo tegay waa lasoo qabtay xidhan maxaa dhahay maxaana lagu haystaa saan oo qeylniim kasta waxaa la dhahay ma xasuusatiina la dhahay wiil la dhaho maxaa la dhahay jaamac oo hadda ka hor laydinku soo eedeeyay inaad dishiin oo aa inkirteen haaya dheheen hadda daliil cad idinku heenaya allah maxay tahay daliishaa nagu haysiina la dhahay daliishii waa loo sheegay wiilkii soo dacweeyey wiilkaas gabadha adaa afkaa ku qirataa la dhahay hadartaana qiro wiilku wuu cabsada askartu iskaga dacweeyey waxay dhahday yiri waa ku dilaa adeerta way dilaa deeba nin hore u soo dishay anigana way dilay wiilkii markay ogaatay in la haayo
khuluud way qiratay waxay dhahday waa run waa dilnay wiilkaan wixii tiri ani ma dilin laakiin hooyaday dishay dhahday haye waa dilnay aslan meesha maalinta idin geynana ma ahayn ay tiri meesha saxda waa kusoo tuurnay laakiin waxay tiri maxaamigayga ama loodar looyarkayga looyarkayga baa wuxuuna dhahay tiri saas dhaha oo khirta oo meel qaldan geeya saas nagu dhahay tiri marka aniga tuulada heblaaye baan geynay tiri halkaasaan kusoo ridnay meeshii haddana la orday meydkii lasoo bixiyey mase waaba runba gaariga meeshuu ku jiraa meydkiina wuuba ku dhex midmiidayba waa lasoo bixiyey waa la baaray markii la baarana waxaa la ogaaday inay sax tahay oo maadada maxaa lagu hurdo jirkiisa ay ku jirto okay allahi waa loo imaaday markii loo imaaday hooyadiina way qiratay markay qiratay mar labaad hooyada marka hore qarto eeda fudud badanaa maxay la qiran kolba dambiga wayba gashay miska inkarto xididka waxay inkaraa ka maqanba hore ka sheegaysaa xunugta khaluud la leeyahay markii qiratay waxay tiri khuluud warkii sii waday waxay tiri aslan hooyadani way waalantahay dhahday haye waxay tiri marka wiilkeedii dhintay yariiska ahaa shoogii ku dhacday ilaa hadda saas waaye tiri ayadaa ka dambaysay tiri ninka inaan dilno ayadaa dishay dhahday mideeda kale waxay tiri intaas kaliya maahane waxay dhahday markay dhahday tiri waa dilaynaa waxaan ku dhahay tiri hooy maxaa see u dilaynaa markaas waxay igu tiri asla ani waxaas wax dhiba ilama lahan haye ma xasuusataayay tiri in guriga oo habararta u gubtay oo hooyaday iyo labadeeda cunuga iyada ay ku dhinteen anaa ka dambeeyay igu dhahday see uga dambeysay aan ku dhahday waxay dhahday iyagoo macal hurdaaya baan bixee tiri gurigooda markaan galay gaaskan soo daaray gaaska markaan soo daarana waxay dhahday dee waa kasoo tegay tiri soo u daarnaa markay nimanka imaadeen waa ninkeeda iyo ninka walaasheed markay imaadeen oo nalka la daaray saasoo guri ku qarxay dhahday ani midda hadda meesha ka fahmaa waxay dhahday waxay tahaybo ilaan gaaska hadduu guriga ku baxo oo muddo ku baxsanaado nalka haddii la daaro ishaacada yartaa ee dhegta dhehaysa nalka dhexdiisa baaba qarax abuuraysa wallahi hadda igu hor aan waxa u malaynaya le guriga hadduu zaid gaas ugu baxo oo intaa tagtad gaaska ambuubada ama baasha gaaska furtid dabkaas le inuu wax qarxinaya u malaynaya ma ahane waxaa lagu dhahaa nalka haddaa daartid xitaa ishaacada yartaa uu sameynaya qarax sababayso sida hadda wiilashaanba nalka le daareen qaraxoo guriga dhan sameeyey bismillah marka waxay dhahday qofkaas anuu ahaa dhahda ka dambeeyey mideeda kale waxay tiri aabbaha markii waxay tiri uu soo dhacay jug yaraa gaartay tiri madaxa wax yar dhiiga uga furmeen caadiyana ahayd laakiin ana cirbad oo sunahan soo gatay dhahday cisbitaalka markaa ku booqan jiray baana waxay tiri cirbadaas ku duray dhahday sababtaasuuna u dhintay because dhakhaatiirtu waxay sheegeen ninka markuu dhintay in dhiiggiisa uu sumaysan yahay sababta u dhintay ee saas tahay lamana ogaada wixii sumeeyey jugtaan iyo wixii wada kulmeen marka waxay dhaheen dhiiggiisa sumaysan u dhintay ee jugta madaxa kasoo gaarta uma dhimanay dhaheen marka waxay dhahdeen anaa markaa cisbitaal ku booqan jiray baan suntaas ku duray sunta magacii ku sheegtay laakiin ma aqaan magaceeda waxay tiri taasaa ku sumeeyey wuu dhintay maxaa ku dishaa waxaan ku dilay dhahday waxay dhahday hooyo iyo walaashay dhahday markii wiilkayga uu dhintay mar alla markii arkaan waxay dhihi jireen tiri aslan doqonaa tahay adiga doqonsanida maxay ahaydee wiilkaaga xataa waa ilaashan weysay qaxiyay doqontaa saasay dhihi jireen tiri mar walba anuu cunugayga dhintay mar walba haddana waxay tiri hadalkaas igu celcelin jireen tiri waa dhibsaday dhahday ninkaygana waxay dhahday mar walba aniga arko wax yarba cunugayguu soo xasuusan jiray tiri markaasuu aniga dhan si kale ila dhaqmi jiray dhahday cunugiisa waxa aaba maskaxdiisa cunugii way ka bixi waayay tiri wuu soo xasuusan jiray mideeda saddexaadna waxay tiri ana dhaxalkan rabay dhahday dhaxalka inaan helo baan rabay dhahday marka waxaan go'aansaday tiri inaan kulligood wada dilo madaxa iga wada xanuujiyaan inaan hal mar isku wada daro baanba go'aansaday dhahday askartii yaaba ilaahay u keena wuxuu dhahay waxa normalka loo wada malaynayay maba wuxuu ahaa faldambiyeed u ahaa tiri habarta way qiratay markay qiratay waa la baaray horta maskaxiyana u xanuunsaneed waxaana la dhahay ma ahan qof dadka lagu dhex dayn karo waa qof u baahan in si gooni loola macaamilo wax kasta ka suurtagalaa la dhahay ninkeedii maxaa la dhahaa oo ahaa axmed xusi yaasiin andhehe axmed waa kii iyada qabo dhintay yaasiin wuxuu sameeyey meesha ku furay wuu furay ilmihiisina wuu ka watay tuulo kaleto u guuray wuxuu dhahaa iga tag qof noocaas haddaad tahay qof lala noolaan kara maba tiide wuu ka guuray ama iyadii waxaa lagu xukumay
xabsi daa'ina lagu xukumay, xabsi daa'ina lagu xukumay, xabsi daa'inkan wixii ku dhex gashay isbitaalka cilaajka iyadoo daawada la siinayo. Laakiin mayna sii waarin wax yar kadibba waxaa la dhahay way dhimatay. Ama gabadha yarta ahayd ee Khuluud ayada waxaa lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah because iyada dembiga maysan geysanin hooyadeeda shaqada fulisay. Iyada juuska wax ku soo dartay, ayadana ninkii ceejisay oo dishay. Gabadha ayada just way saacidaysay. 3 sano lagu xukumay oo xabsi ah, maamadina saasay ku dhimatay. Wayba iska dhimatay maamadii xabsiga dhexdiisay ku dhimatay. Qisadana intaasay kusoo gabagaboosay. Ka warama bal qisadan say idinla tahay. Dad waalwaalan ah mararka qaarkood guryahan nugula nool wallahi bilaa maskaxiyan dad u xanuunsan. Mida kale wallahi aniga gaaskaas inuu qarax sameeyo nalka markii la daaro hadda la ku baraarugay. So hadaa aragtid gurigaaga mararka qaarkood ilowdid gaaska hadda si zaa'id ah loo isticmaalaa. Hadaa aragtid inuu gurigaaga gaaska soo uraayo waadan Ilaahay uu kaa badbaadiyo oo micnaha aadan neefta aadan ku neef qaadin. Waxaa sameynaysid oo kugu hore waxaa waaye inaad gaaska xirtid daaqadaha gurigana aa furtid si hawada uga baxdo adigoo nal ama dab midna adigoon taaban inaad daaqadaha furtid hawada si hawo kale u soo gasho banaankana aa uga baxdid. Laakiin hadduu gaasku zaa'id noqdo nalka aad daartid baaba qarax sameynaya lagu dhahay aad uu dhib badan yahay. Marka inta kusoo gabagabeynaa qisada adinkana waxaa ka fahanteen commentka igu soo qora asxaabi waxaan iga codsanahay please inaad subscribe-ka igu saacidiin sidoo kale like share commentigana aadnaan iga bakhiilin please waa idinka codsanaa. Intaa fiidiyan la mid ah ku kulmeynana waxaan idinku dhaafaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatuh.